Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa muuqaal lagu tiriyo muuqaalada la soo geliyay YouTube-ka laakiin xambaarsan cibro qaadasho gooni ah. Wiilkan yar waxaa la yiraahdaa Amiir. Wuxuu keligii la nool yahay hooyadii oo xanuunsan. Subax kasta wuxuu soo kacaa xilli hore. Hooyadiina waxay u diyaarisaa quraac. Aabihii wuu dhintay, laakiin hooyadii uma sheegin inuu dhintay. Markastana waxay ku tiraahdaa aabbaha xilli hore ayuu kacay, wuxuuna aaday shaqo. Habeenkii markii la soo gaarana waxay u sheegtaa inuu weli aabihii imaanin oo uu shaqadii ku soo daahay. Wiilkan yar wuxuu baxaa subaxii hore si uu u helo joornaalada soo baxo. Intii uu akhrinayo joornaalada ayaa wuxuu habsan ka noqdaa iskuulka. Wajigiisuna marna kama dhamaato dhoolla cadaynta. Laakiin marka uu gaaro iskuulka ama madrasada, uuna gala fasalkiisa, maclimadiisa waxay ku tiraahdaa iyadoo canaananayso, maxaad u soo daahday? Waxay ku tiraahdaa orodoo daaradda madrasada 10 goor ku soo orod, waana ciqaab soo daahida soo daahday awgeed. Boorsadiisii ayuu dhigtaa asagoo dareemaya daal aad u daran, wuxuuna ku yiraahdaa macalin, 5 wareeg oo kaliya ayaan sameynayaa, inta kale iga qalleey. Maclimadana waxay ku tiraahdaa iyada oo diidayso, waryaa waxaas ma jiraan, waa in aad 10 goor orodaa. Markii ay sidaa tiraahdo waxaa ku qoslaan asxaabtiisa ay isku fasalka yihiin. Wuu baxaa wuxuuna bilaabaa orodkii. Asagoo ordaya ayuu maqlaa codka maclimada oo oranayso, qof kasta waxa uu leeyahay hami iyo wax uu ku riyoonayo, waxaana waajib ah in aad isku daydaan hamigiina sidaad u rumayn lahaydeen si aydan u noqonin ardayan oo kale. Waxayna ula jeedaa wiilka yar ee Amiir la yiraahdo. Marka uu dhameeyo Amiir orodka, waxa uu soo galaa fasalka. Amiir fasalka waxaa la dhigto arday markasta caayo oo dhiba. Inta lagu guda jira xiisada, Amiir wuxuu bilaabaa in uu seexdo iyadoo ay xiisadu socoto. Markay dhamaato xiisada, Amiir waxaa soo toosiya asxaabtiisa, dabadeedna wuxuu soo qaataa boorsadiisa. Maalin maalmaha ka mid ah, markii uu fasalka ka soo baxay ayuu la kulmay fursad tartan ah taa oo la ordayo 500 oo mitir. Qofkii ku guuleystana uu helayo 500 oo lacagta Malaysia ah. Wuxuu soo qaatay warqadii iclaanka ama lagu shaacinayo orodka 500 oo mitir ah si loo diiwaan geliyo uuna uga mid noqdo ardayda tartamayso. Amiirna wuxuu ahaa wiil aad u jecel ciyaaraha. Si kadisa asagoo warqadii eegaya ayuu baskii iskuulka uga tagay. Uu ka soo daba cararay si uu u gaaro baska, laakiin nasiib xumo wuu ka tagay. Intii uu sii socday wadadii guriga geenaysay ayuu wadada kula kulmay arday ay isku fasal yihiin, kuwa oo markasta caayo oo dhibo. Dhinacyadiisa ayay soo istaageen, waxayna garteen inuu Amiir doonayo inuu ka qayb qaato tartanka orodka. Midkood ayaa ku yiri, ma waxaad doonaysaa in aad tartanka ka qayb gasho? Waxaad tahay mid fashil daa'ime, kumana guuleysanaysid tartanka, maxaa yeelay aniga ayaa tartanka ku jiro, aniga ayaana ku guuleysanayo oo qaadayo koobka. Wuxuu u sii raaciyay, hadda ma ila tartamaysaa? Amiir ayaa ku yiri, haa waan kula tartamayaa. Orodkii ayay bilaabeen. Asxaabtiisii ayaa bilowday in ay u tiriyaan, laakiin Amiir ugu dambeyn waa uu ku guul dareystay, wuxuuna ku dhacay dhulka. Sidoo kale waxaa ka go'ay kabihiisii. Gurigii ayuu iskaga noqday isagoo maroor dilaacsan, maxaa yeelay kabihii ayaa ka go'ay. Intuu uu jidka sii socday ayuu arkay nin iibinaya kaba la soo isticmaalay, ama waxaan u naqaana kaba celis ah. Kadib ninkii kabaha iibinaya ayaa arkay Amiir oo eegaya kabaha. Kadib wuxuu ku yiri, wiilyahow, ma u baahan tahay oo ma doonaysaa kabahani? Amiir ayaa ku dhahay, waan ka helay. Ninkii kabaha iibinaya ayaa soo qabtay kabihii uu Amiir eegayay, wuxuuna ku yiri, kabahani waxaa laga siinayaa 30 ranji lacagta Malaysia ah. Laakiin Amiir jeebkii ayuu gacanta geliyay, wuxuu ku yiri wax lacag ah ma haysto. Wuuna iskaga soo tagay, gurigii ayuuna ku soo noqday. Kadib hooyadii ayaa ku tiri, wiilkaygiiyow soo bax oo qadada cun. Markii uu qolkii ka soo bixi waayay, hooyadii ayaa qolka ugu gashay, waxayna aragtay wiilkeedii oo lugta wax ka soo gaaray. Waxayna ku tiri, maxaa kugu dhacay? Wuxuu ku yiri, dhagax wadada yaalla ayaa ku dhacay. Kadib hooyadii ayaa daawo u raadisay, lugtii ayayna u marisay. Waxayna ku tiri, muddo naso oo meel ha aadin oo inta joog. Laakiin Amiir hadalkii hooyadii kuma socdee, kaliya waxa uu cad tartanka orodka. Wuxuu soo saaray sanduuq yar ee uu gashan jiray lacag si uu ugu soo iibsado kaba sports ah, laakiin wuxuu ka helay 10 shilin oo kaliya. Lacagta kabaha la iibinayana waa 30 shilin. Kadib wuxuu go'aansaday inuu eedadii kala shaqeeyo meherad si uu u helo lacag. Muddo ayuuna ka shaqeynayay meheradii ilaa uu ka helay lacagtii oo dhameystiran.
maalin maalmaha ka mid ah amiir oo wax baranaya ayaa hooyadii soo ag fadhiisatay waxayna ogaatay in wiilkeedu uusan zaa'id u daneynin waxbarashada. waxay ku tiri wiilkeyga maxaa kugu dhacay, waxaan baryahan arkayaa in aadan waxbarashada daneyneynin. wiilkii ayaa ku yiri hooyo ma ii ogolaanaysaa in aan ka qayb qaato tartanka orodka. warqadii ayuuna u soo saaray. markaasii hooyadii ku tiri wiilkeyga waxaa ka muhiimsan waxbarashadaada. amiir ayaa ku yiri hooyo waxaan rajeynayaa in aad tartankan ka qayb qaato. hooyadii ayaa ku tiri hagaag, laakiin iga ballan qaad in aad xoogga saari doonto waxbarashadaada tartanka kadib. wuu ku waafaqay wuxuuna ku yiri hooyo waa ballan, xoogga ayaan saarayaa waxbarashadeeda tartanka kadib. isla markii ayuu amiir baxay si uu u soo iibsado kabo sports ah ugana qayb qaato tartanka orodka. laakiin markii uu kabaha soo iibsaday kadib wuxuu wadada kula kulmay ardayda ay isku fasalka yihiin, waxayna bilaabeen inay kabihii ka xoogaan. dabadeed waxay ku tuureen biyo dhexdii. hooyadii ayuu u sheegay in kabihii laga qaatay dabadeedna lagu tuuray biyaha. hooyadii ayaa ku tiri ha ooyin hooyo, waxayna soo gelisay gurigii si ay qada u siiso. waxay u soo qabatay kabihii ka go'ay waxayna ku tiri ha ooyin hooyo, kabahani ayaan kuu soo tolayaa. laakiin amiir waxa uu la soo baxay dabeecaddan lagu aqoonin. kabihii ayuu tuuray ayadoo hooyadii ay gacanta ku hayso. wuxuuna ku yiri aniga waxaan u baahanahay kaba sports ah. wuxuuna hadalkiisa raaciyay aniga ma garanayo waxaan uga dhashtay qoyskan faqiirka ah. qolkiisii ayuuna ku cararay isagoo oynayo. laakiin hooyadii waxaa qalbigeeda saameeyay hadalkii wiilkeeda, waxayna u keentay kabo waxayna u dhigtay ilinka qolka kadibna way iska tagtay. amiir wuu soo istaagay si uu eego waxa ay hooyadii u keentay, laakiin baakada ay kabaha ku jiraan dushiisa waxaa saaran warqad. warqadii ayuu soo qaatay wuxuuna bilaabay inuu akhriyo. warqadda waxaa ku qoran wiilkeyga sharafta badnaayow, waxaad ogaataa in qoyskani uusan awoodin in uu ku siiyo wax kastoo aad u baahan tahay, mana awooda in aan ku siiyo wax dabooli kara baahidaada. waxaa laga yaabaa in aad isdhahdo maxaan uga dhashtay qoyskan faqiirka, laakiin wiilkeyga waxaan rabaa inaan kuu sheego ilbiriqsiyadii aad qoyskani ku soo biirtay inuu ahaa ilbiriqsiyadii ugu farxadda badnaayee nolosheena. waxaad ogaataa in jirka hooyadaa uu daalay, xanuunkiina uu u adkaysan layahay, laakiin waxaan rajeynayaa inaan kuu sii wado daryeelka intaan awoodo. maanta waxaan kuu sheegayaa inuu aabbahaa geeriyooday uuna waxba kaaga tagin, kaliya uu kaaga tagay kabahan. ugu dambeyn waxaan kuu sheegayaa in aan ahay hooyadii ku jecleed. amiir asagoo oynaya intuu istaagay ay hooyadii u tagay. hooyadii waxa ay ku tiri waxaan ogahay in aad wiil fiican tahay, waana ku jeclahay wiilkeyga. dabadeed waxaa timi maalintii tartanka orodka. hooyadiina waxay aaday madrasadii si ay u xaadirto goobta lagu qabanayo tartanka. hadda waxaa bilaabanaya tartanka orodka. amiir hooyadii waxa ay bilowday in ay wiilkeeda dhiirogeliso. muddo markay ordayeen ayuu amiir ardaydii dhan ka wada hormaray. markii uu dhammaan ardaydii ka hormaray ayaa u soo dhawaaday arday xun ay isku fasal lahaayeen, wuxuuna ku tuuray dhulka. markii uu amiir dhulka ku dhacay ayuu soo xasuustay waxyaabihii uu kala kulmi jiray ardaygani. sidoo kale waxaa ku soo noqnoqonayay sidii uu ku soo gaaray tartankii iyo dhibkii uu ka soo maray. ilbiriqsiyo kadib amiir wuxuu isgeliyey karti, wuuna istaagay, wuxuuna bilaabay inuu tartankii sii wato ilaa uu amiir mar kale ka hormaray dhammaan ardaydii la tartamaysay. ugu dambeynna wuxuu jaray xarigii guusha astaanta u ahaa. haddaba fiiri farxadda amiir iyo tan hooyadii. farxaddiisa waxaa 10 jibaar ka weyn tan hooyadii. haddaba hooyo waa tanaaye maxay kaa mudan tahay? haddaba halka ayaan ku joojinaynaa muuqaalkii quruxda badnaa ee dhex maray amiir iyo hooyadii. muuqaalkan haddii aad ka heshay fadlan like saar si ay noo dareensiiso in aad ka heshay muuqaalkani. haddii aad doonaysaan in aan sii wadno muuqaalo sidaan oo kale ah fadlan nagula wadaag qaybta faalada ama commentiga. sii faafi muuqaalkan si aad caasiyaasha ugu beerto qulubtooda jaceylka hooyadood. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.